ma ogtahay inuu jiro dal xaafadaada ama gurigaaga ka yar kaliya ay ku nooshahay 30 qof. Malaysia waa dal yar oo aasaasan lagu magacaabo Kevin Boat ahna madaxweynaha dalkan yari waxa uu ku yaala oo xal la wadaaga gobolka Nevada ee dalka Mareykanka. waxa la aasaasay sanadkii 1999kii waxaana dalkan yari leeyahay calan u gaar ah, lacag u gaar ah, ciidan u gaar ah iyo xitaa sharciyo u gaar ah. tirada dadka rasmiga ah ee ku nool Malaysia kaliya waa 30 qof, inta badan madaxweynaha, qoyskiisa iyo dhowr asxaab oo uu leeyahay kuwaas oo ah muwaadiniinta rasmiga ah ee uu leeyahay dalkani. haddaba madaxweynaha dalkanina waa dictator uguna goodiye Mareykanka inuu qabsan doono maalin waxaana bixiyaa canshuurta Mareykanka maadaama uu ku yaalo dhulweynaha dalka Mareykanka, balse isagu waxa uu sheegaa in ay lacagtaasi tahay sadaqo. haddaba 1999kii madaxweynaha dalkan isagoo ah dhalinyaro ayuu keenay fikrad ah inuu asaaso dal isaga gaar u ah, waxaana arrinkan u soo bandhigay asxaabtiisa iyo qoyskiisa. deetana waxa uu baadiyaha gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ka dhistay guri yar oo ka taagay calan u gaar ah. calankanna waa calanka rasmiga ah ee dalka Malaysia, waxaana la soo degay oo dhowr guri ka dhistay asxaabtiisa iyo qoyskiisa. sidaas ayuuna dal madax bannaan iskugu magacaabay oo leh calan u gaar ah, bangiyo iyo golaha sharci dejinta. waxaana ku nool dalkani kaliya in ka badan 30 qof. badanaa waxa uu goodiyaa dalkani Mareykanka iyo dalka Jarmalka oo uu sheego inuu maalin u qabsan doono, waana madaxweyne kaligiis talis ah. dalkan yari cabirkiisa waxa ka weyn hoteelada iyo moolalka caadiga ah ee ku yaal Soomaaliya. mararka qaarna garoomada yararka kubadda lagu dheelo ayaaba dalkan oo dhan ka weyn. haddaba Malaysia ma lahan dhaqaale rasmi ah oo caalami ah, balse waxay si weyn ugu tiirsan tahay dalxiiska iyo in lagu jilo aflaamta lagana sameeyo dhaqaale xoog leh. lacagta dalkan Malaysia waxa loo yaqaanaa Valoria coin. isticmaalka lacagtanna waxa loo isticmaalaa ujeedooyin ah ururin iyo xasuusin. madaxweynaha dalkanna oo ah nin dictator ah waxa uu Mareykanka ugu goodiyaa inuu qabsan doono. muuqaalkeena maantana aan ku soo qaadanaynay dalka ugu yar adduunka Malaysia. intaas ayuu ku eg yahay. soo dhawaada daawadayaal, halkanina waa Wehel Media.